filimka aad daawanaysaa waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV. ॐ महागणाधिपतये नमः। igaraal naqmaru baasaboorkaaga ma arki karaa mahadsanid marwo safar wacan ayaan ku leeyahay ها وجوغا هذا ينكو صدرايا مستر أجي waad gudbi kartaa waa maqsantaa أمرو إجرال النقو هاي maxaan ku qabtaa أمش الشقة أكرا معنا شغل مين تما كبنانتا يشق almiita dhina jim dheh الجيم كا وكوذيوا الشقة كلا دي بنانتا يشق بواقوا هاي ها shaqo way banaantay أمشار كذا ما قوان todoba kun waay laba waqtina waad shaqaynaysaa وقتها الدولة ولكن شقة نوعها يشق 11 saac subaxnimo soo galaysa 11 saac maqribkiina waad ka baxaysaa adiga dhulkan waad tiraa musqulahana waad dhaqaysaa أنا قلتك أنك ما يملي سامرك دول كنت تراي نسعد سي صاحب ما حد عني يشق isla markii aan aniga imtixaanka galay horaanba guusha ka qaada ka war 30 kunna waa la siinay axadna fasaxan leeyahay 30 kun dii lagu sii hoy anna meeshaan shaqalaan ugu haysa taas maxaa ka macnaa aniga gacayara ka dhiganay ka war 5 kun
ayaana bishii ku siinaya ma kugu filno عشان كنت قاعد عادي وأنا أصدق كوني قاعد اسمانو madax xanuunkayga daawraa أيوة يا دب ماله هذا وبحنا سكاي بارا أدينا iigu celi maxaa dhahday سكاي بارا أدينا معنا خمري بلا يسوع عبينا بلا ما نتبعنا jeebkaygaad cadow ku tahay كفتن لي نوت subax wanaagsan saaxiib maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay farxaddeena mid maaha waa laba siyaabood haddaan idinkala sheego farxadda koowaad kambanigeena hoos u dhac ku yimid waan ka soo kabsanay farxadda labaadna waxay tahay 400,000 oo karoor shirkaddeena inay faa'iido heshay arrin kalena way jirtaa shirkadda waxay rabtaa inaan shiraaka la noqono shirkadaas daan shirka la noqono 2.4 oo bilyaar ayaan faa'iido helaynaa mideeda kale hawshaas haddii aan ku guulaysano qofkiiba 120 oo sheer ayuu shirkaddeedu ku lahaanaya laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay muddo 3 bilood ayaa la doonayaa hawshan in lagu soo afjaro 3 bilood maxaas ka wadaan mudana laakiin maxaa daari waa adag tahay gentleman weerarkan hadda nagu cusub diyaar muutiin inaan si wada jir aan u qaadno bravo arrintaa darteed waa inaan u dabaaldegnaa waxaa inoo balana beerta subax wanaagsan gacaliso subax lamid maanta codkaaga farxadan ka dareemayaa haa laba arrin farxad leh ayaan ku hayaa arinta safarka miyaana gacali maya arrinta safarka meesheeda iska taala laakiin adiga hareerahaaga dhan waa wada farxadan ku dheh farxadan inay saa i tahay waan u jeedaay maxay tahayna mar walba on codkaaga maqlo gabay iyo geeraar ayaa qalbigay ka soo maxanaya naga dhaaf yaaqay gacali adiga romantic hadeed bilaado ma dhameynaysid ii sheeg farxadda maxay tahayna farxadda koowaad haddii aan kaala hadlo ugu horreyn shirkaddeena khasaaraha soo gaaray sanadkan way ka soo kabatay 400,000 karoorna waa faa'iidnay maxaad dhahdayna miyaa gacali taas waxaa sii dheer kambani weyn oo Singapore ku yaala ayaan sheer la qaadanay 2.5 bilyan ayaa nooga soo xaroonay sanadkii yaa 2.5 bilyan maad dhahday haa laba xaflad inaad u dhigtid waa yaaqay diyaar waan dhigayaa laakiin caawa xogaa barnaamij ayaan leeyahay xafladda shaqaalahan la qaadanaya beritolan dabaaldegaynaa labadeena waayaha gacali dhibaato ma lahan laakiin cabitaankaas ka badanaya okay fine gordon kulmeena bye bye daawadayaal filimka aad daawanaysaa hooy macmacaankan hoo gabadheeda adigana naasmiitaaye maxaa waaye waxaan jira nancaan baad wadataabe farxaddan fadar badan xaggay ka timina ii sheeg maxaa jira arrin kale ma farxad way jirtaa hooy laakiin adiga iska qiyaas bal ii dhibana cunna macmacaankani waxay ila tahay aniga in gabadh maya hooy taas waqtigeeda lama gaarin farxadda ayaa waxay tahay wiilkaaga kambanigiisa lacag aad u fara badan inuu faa'iiday hadda ayuu soo cawlay sheegay farxad weyn waa arrin farxad leh hooy aniga hadda madarka aadaya waan soo laabanay adigana macmacaankaas ka badanaya dhaqso soo laabo dhammaanteen waan wada qabaynaynaa iminka bala soco ha soo habsaamin inantaydoo ku baryaya waaye waxaa aniga farxadii ah inaan sidan oo kaleeto inaan sodoh u noqdo waad saxan tahay waana inaga fikirtaa dhammaanteen baan kugu wuri iyada xitaa farxad ayay u tahay maadaama innaga ay nagu soo biirtay inantu ma og tahay markii gurigan ay labadeeda lugood soo saartay 400,000 oo milyan ayaanu faa'iidnay hadday 4 lugood lahaan lahay 800 oo milyan ayaanu faa'iidi lahaa inkaala iska argayaan dhig macmacaanka ayay gabadha haddii 4 lahaan lahayd xayawaan noqon lahayd maahane sodoh umaada noqon lahayn miskiin nahada iyadu sida inanteedu kalaata ayay ku ilaalisaa kowdhe adiguna sida inanteedoo kale uma noqon kartidba mana ogolid inay hooyadaa tahay adiga taas maxay ku dhacday inay ii sheeg taas haddii ayba dhacaysa ayay waxaad ogataa waqti badan inay u baahan tahay arya ajiib waa ku salaam waa ka qaada mudan horta adiga gacan yaraso ima weydiinin waa hayaa waan u yeeri karaa hadda u baanta waa muga aan arkay sondar dawlo kale awakana butiiq miya kale ora xisho inta fiiriya arya waa kana mudan sondar xumow gacan yaraha adiga miya ani waay arya mushaarkaaga 5 kun oo ka bilaabaha in lagu kordhiyana wax qabadkaaga ay ku xiran tahay suubita waa ogolahay promotional lagu sameeyaa arkaare mahan 40 qof aad joogto horta fiir sama jistlaskaaga diyaariya qabo sana dhay wariixi waa kana family tujaare ka soo jeeda maal qabeen waa tirada ha fiirinin laakiin tayada inaad fiirisidaa muhiim ma fahanti wax walbana adaa mas'uulka waaya adaan kuugu ogaa hawshan si fiican igu halay mudan waa maasta odogaa mudan aywa mudan macsalaam macsalaam markii hore kambani biida ka shaqeey laakiin hadda kan jaga ku ahay suubita waay waraaje
ugu dambeyn shaqo fiican waa ishaa ku dhahay laakiin hadda waxaa la joogaa waqtiga guursa leed oo noloshaadana dhisa lahayd wareedha Bangalore joognaa 30 kun nin ku shaqeeya siduu nolol ku dhisan karaa ii sheeg bal dabaal maata fiiri dhegeyso kuwa xamaaliyaalka ahaayeen dekada ka shaqeyn xataa way guursadeen adoo hadda saane soo guursalaaday aniga nolol noocaas uma baahne waxaan rabaa shaqo wanaagsan inaan qabto nolol heer sare ahna aan dhisto ma fahamtay hadafkayga soo waxaa rabtay samee aniga hadda waa ka dhaca dig maxaa waay sigaarka fartiga maxaa isaga yareen weyda روشني عاوية روشني dad ma joogna meeshan maxaa dhac soo jiraan kuwa tuuga ayaa saayale caawa ku baraya ilkaad bajaaj tog istag studio asal 24 waxba ka walwalin way fiicnaanaysaa هذا يا طمها سنتها مدن هدي أديك تروشني بدلن ساعة waxaas oo wax iska caadi mar walba farxadda waa inaan filanaa waxay ahaataba idinka jimkeena ayaad ka imaadeen soo ma ها مدن meeshaas ayaan ka imaadeen aniga jimkaas shalay ayaan ku soo biiray igraal noqdo roshni familkeeda miyaa tiinay haa waa aniga sidee taa xaaladeeda iga waran hadda jug adag ayaa madaxa ka soo gaartay dhiig badanna wuu ka baxay dhakhtarkana wuxuu dhahay dhiiggeeda ayaa loo baahan yahay la raadiyo waana obalaas obalaas maaho aniga obalaasa ana uga dinay dhiig diyaaraan waa hubtaa mahano nakeen mudan aad u mahadsantahay idhagayso gabadhan hadda way fiicnaanaysaa waxba ka walwalin waxay kadibna isbitaalka waad ka saari kartaa gurigan waad u kaxay kartaa okay aniga waa sii baxaya roshni sidee dareemaysaa hadda xaaladaada sidee adiga nasiib ayaad leedahay run ahaantii haddii uusan ajee waqtigaas imaan lahayn maxaa dhici lahaa ma qiyaasi kartaana ajee iyuu yahay ajee ii sheeg bal ajee waxa waaye macalin jiimka waa jiimka aniga aan dhigto ayuu shalay ku soo biiray macalinna uu ka yahay isaga ayaa waqtiga loo baahnaa imaaday kadibna isbitaal ayuu ku keenay isbitaalka kaliya maan xitaa dhig ayuu kuu shubay oo isaga miyaa dhigii shubay haa dhig ayuu kuu shubay titoorasada waxay dhahday dhig ayaa degdeg loogu baahan yahay isla markaa isagana hore ayuuba ka aqbalaba labadiinnan isku dhig ayaa tiin ka waran dabaali dhigayso aniga hadda waan baxayaa adiga xiddaan muu sheegtay arrintan aniga eedda ayaa isoo wacday balse waxa uma sheegin adiga waa wici kartaa waana u sheegi kartaa maya uma sheegaayo aniga hadda waan baxayaa toos ayaan guriga tagaa markaas kadib ayaan u sheegaya waan baxayaa dhakhtarka wuxuu dhahay ilaa iyo maqribkii lagama saari karo isbitaalka waadna joogaysaa adiga ilaa iyo maqribkii aniga aabbay haddii ogaado aad ayuu u murgaayaa marka waan ku baryaa meeshaan ma joogi karo iyo fasax gurigeena ayaan aadayaa haddii ay saasa dhakhtarka ayaan ku laabanayaa waana u sheegayaa arrintaada sida ugu dhaqsiyaa badanna waa lagaa saarayaa waad mahadsan tahay walaashay aniga ha ii mahad celinin ee wiilka dhiigga kuu shubay uu mahad celi waxaas ka gudube horta maxaa isku tihiin asaga anaga waxawaa saaxiibkeena waa ino roshni maxaa kugu dhacayna waa maxay faashidan kugu duuban wax saas weyn ma baaha jiimka miraayadiisa ayaa igu dhacday laakiin dhaawacay rumeeka aabbaha haddii arkana wuu walwalayaa gabadhaydii maxaa qaldan may marow aabbay aniga arrintaa maraba inuu ogaado haddii uu ogaado hooshuu hay dhan wuu ka soo tegayaa kadibna gurigu imaana markuu yimaado anigaabuu u sheegaya aabbahe iska dhaaf adiga waaye kaala wax cunahee soo bax may waxama cuni karo mar kale ayaan cunaya iga dhaaf
okay roshni anigu waan sii baxayaa mar kale aan ku saaxiibtee hay eed anigu waan sii baxay bye هلو قعليسو مع شيسين روشني مع شيسين ويدالنتا وين شركنا كسو دايمويه قرشيق وحوها سي ودا جير inaan ku wada cashayna caawa laakiin way noqon weyse madaxa ayaa dhaawac yar ka soo gaaray aan isdaji marka hore adiga waa sababta telefoonka uu soo diri weysay waa dhaawac yar oo kale awayadi roshni kaale hada dhibaato ma qabto ha kicinin waxaan wax weyn maaha kaliya miraayad ayaa qashay mala socotaa dhaawac yartuu soo gaaro inaan jirkayga ka dareemayo ilinteedana iska daadanayso inaad jeceshahay waan ka xumahay samiitaa mala socotaa gabadheeda inaysan nasiib u yeelan jecel hooyo sidaasay tahay booska hooyo aniga ayaa u buxiyey wax walbay u baahan tahay inuu u sameeyey darteeda waxaan u samaysay soo maaha mala socotaa inuu jiray wakhti keligay aan dunidan ku noolaa nasiibkaygana waa aad u xumaa laakiin maalintay gabadheeda dhalatay nasiib ayaaba i daba kacay hanti ayaan yeeshay ilaahna garbuu i siiyey cidlada ayuu iga saaray xaas wanaagsanna nasiibkayga waa uu ka dhigay midaas midka farxad badan miyaa jirta waa maya adiga haddii aadba faraxsan tahay annagana waan faraxsannahay ma ogtahay anigaba nasiib ayaan leeyahay maadaama familkaaga ka mid noqday mala socotaa labadeena markuu guurkeena dhacay waxaan ka baqay roshni inay uqdad qaado ciis dhahdo jacaylka aabuu ku qabay gabadhaas ayaa kula qaybsanaysa laakiin taas maysa dhicin farxaddiina markaan arkay farxad ballaaran kalaan ka sii qaaday هلو روشني هاراني صحيح waxaan u baahnaa wiilka anigii badbaadinay maxay uma maad celin dambina galaayeen il muuqata waxaan rabaa inaan la kulno istaas uga maad celi waliba okay xageen kula kulana ii sheegay yaqay taas adiga le ka fikir saaxiibe aniga meesha jimka inaan kula kulano ilman wanaagsano waxaan ku siinayaa lambarkiisa kadibna adiga la hadal waayahay waad mahadsan tahay waan ku jeclahay bye bye okaada waxyar xoogaa gadaal u soo qaadahaa xawadka keen kadib celi okey saan u soo jiid bravo okaada adigana okaada haa gacmaha saasuu lab inaad meesha geystaa loo baahan okey keep going okaada hal mar ajey birita jaanis ma leedahayne atoorihii weynaa dilshaan filimkiisa ayaa soo baxoy shaleemada ma aadna aniga xitaa waan jeclaa aktarkaas filmadiisa laakiin saaxiibkay soo darmaarkana walaashiisa aa berita arooskeeda la qabaqaabinaya marka lama aha inaan aadi karo okay have a good day ajey walaalka ana xitaa ma oginay gabari la dhalatay yaqay qofta dalabka iga badisano lama aqbalin inaad dhahan kala xishoobay qatarata
meesha agoonta ayaan ka soconaa mana caawin kartaane meesha agoonta marnaba ha dhihin waxaad dhahdaa iskuula iskuulaadka maxaa lagu bartaa ii sheega cashir waa sidaas goobtaasna waxaa lagu bartaa casharada nolosha hadda mar kale igu celiya xaggeed ka timaadeen ilmo ii sheega baraaw iskuulkiina meeqa arday ayaa joogta mudane iskuulkiina konton arday ayaa joogta mararka qaarna waxaa cunna xataa ma heleeno caloosheena biyo keliya ayaa ka buuxsaneyna walaalka lacagtoo dhan kuwaana siis annaga maxaa ku noolaahayna ay sheegto dhibaa galayna ma ogtido mishaarkeena inta mishan beri anoogu dhiman saaxiib dhibaatooyinka nolosha ka maraa markii loo barbardhiga keen waxuu maaha saaxiibow allahiina siiye ilaa hadda wuu joogaa waa fahmi lacagta kormay kaaga soo dhacaysa ii sheegba markaa iika ku daldalays hay rashni weli waa jiiftaa miya boqoradda weli waa jiiftaa maxaa dhacayna iyaa waa suldaanka adiga hurdada kaa qase saaxiibi adigana waxaan kaala yaabay qalbigayga waxa ku jira hore ayaad ka ogaanaysaa kaala adiga aniga miyaad igu dhex nooshahay hee taas micnaheedu waxay tahay roshni inuu jecel galay iyaa jeclaatay ajee miyaa jeclaatay iisha qofkaas miya haddii waxba kama jiraan kula xataa ima aaminaysid hadda ayaan fahmay maalinta koowaad asaga ayaa dhiig kuu shubay balse adiga hadda qalbigaaga ayaad siisay ajee arrintan ma ogyahay xagga saar aabbaha haddii ogaado ma ogtahay dhibaato weyn inay dhacayso sababtoo ah labadiin isku darajo ma tihiin yaqaniga taas ma aaminsan saaxiibey ninkan aniga dhiigga markuu ii shubay ciddaan ah miyuu ogaa heerkan taagan ah miyuu ogaa waa maysama waan ogahay middaas teeda kale waxaan hubaa adiga waxaad samaynaysidni inaad la socotid ajee arrintan maxaad ugu sheegi weysay yaqaniga waan jecla laakiin ma qanqaaban ugu sheego yaaqay maxaad ku hadlaysaana looma baahnin inaad sidaas samaysid waa inaa u sheegtaa maanta haa isla hadda weliba ಪರಿಚಯವಾಗದೆ ಈ ಒಲವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನಮ್ಮಿ ತಳಮಳ ಬಂದಿಯಾಗಲೇ ಆಸೆ ಮೂಡಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಲೇ ಆಕಾಶ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ನೀನಿರದೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಿಜವಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಯಸಿ ಸೆರೆಯಾಗುವೆನು ನಾ ಅರಿತು ಸೆಲೆಯಾಗುವೆಯ ನೀ ನಾ ಪರಿಚಯವಾಗದೆ ಈ ಒಲವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ roshni maxaa kugu dhacay
ajee katiinadan aad u jeedda adiga waa xasuusta hooyadee noloshadan waa iiga qiimo badantaa waxaana rabaa adiga inaan ku siiyo inta ay naftayga jirto katiinadan sidaan ku ilaalin lahaa ayaan u ilaalinayaa inaan dayaco lagama yaabo waa ballan ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲೇನು ಸ್ವಂತ ಎಂದು ಸಾರಲೇನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗದೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾವನೆ ಸರಮಾಲೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಸಂಕೋಲೆ ಅನುರಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೆರೆಯಾಗುವೆ ಬಾಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಬರುವೆ ಆಕೆ ಚಿಂತೆ ನೀನು ಮಿನುಗೋ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ನಾ ಪರಿಚಯವಾಗದೆ ಒಲವಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ روشني gabadheeda xagee ku soo daaday igaraal naqaabo haye waxaan joogaa guriga raani agteeda ayaanu ku soo daahay okay gabadheeda adigan ku sugeen hadda wada casheynaynaa may hooyo aniga baahay ima heeso maxaa yeelay saaxiibtay ayaan la soo cashiyay ayadan igu qasabteen gabadheeda waxay xitaa ka tataabano maya hooyo aniga waan daalnaa bis inaan nasta ayaanu baahanahay haye waa saxan habeen wanaagsan aabbo ayay habeen wanaagsan inakaygiyo inantan hadda way weynaatay waxaa la doonaya wakhtigay bacsi wakhtigay imaanaysa in lala socdo oo weliba qof la daba dhigo ogaada halo mohon soo ma doonayn arrimaha roshni inaad wax iga sheegto مشروع cusub inaan goordhow bilaabo ayaan rabaa soo wanaagsan ayeeyo gabadheedii roshni akhbaar farxad leh ayaan ku hayaa hayaaba maxay tahayna jaamacadda waan kuu soo dhameeyey kursigaagana waa kuu diyaar haye waxbarashada soo ma dhamaysanaysa aniga hore soo kuguma sheegin waxaas inaanan ka helin gabadheedaan ku weydiiya jaamacadda miyaadan ka helin mise ajay inaad ka fogaataa diidan tahay gabadheeda wax walba oo aad jeceshahay haddii aad isaga ku xirtid ilaa intee ayuu maskaxdaada dalad garaynaya aamus roshni hadalkayga dhegayso 20 maalmood ayaad jiimkaas dhiganaysaa saacadaad kulanteen waa 30 saacadood maalin barkeeda haddii aan qiyaasaan ka qaadan ma 30kaas saacadood ayaad daacad ugu noqotay khalad ayaan u arkaa aabasaad waxu fahantu xumaba maya iga ilaali naftaada inaad difaacdo ilaan waxaa soo wadaan ogahay si waali ah ayaad u jeclaatay balse waxaan kuu sheegayaa inuusan kuu qalmin go'aanka inaysan u qalmin in kale ayadoo daa marka hore jecelkay u qabta haddii uu dhab yahayna way isku soo baxayaan labadooda aamus sidee hadalkaas ku dhahdaa ninkaas jiib ka shaqeeyo mishaarkiisa waa mis ma garanaysaa waa 30 kun darabalka ii shaqeeya imise ayaan siiyaa bishii ma garanee waa 50 kun oo rubis waxay rabaan inoo sheego mushaarkiisa miyaan dhaqankiisa ku qiimeynaynaa marka waayahay sida inaad wax walba ogtahay oo kale ha ila hadlin waa daciif xun midana daciifkaas ayay jeclaatay doqonnimiyay ku qaadeen degdegin inankaygiyo waxaa laga yaabaa inuu qof wanaagsan u noqdo laakiin adigu maxaad ugu yeedhi la'day guriga hooya noloshiisa hore iyo dhaqamadiisa waxba kan ma naqaano laakiin adigoo darajadeen og ayaad gabadhan garabsine waa sababtay hooyada kuu leedahay guriga ugu yar kadibna la hadal aabo
xaqiiqdu waa nin aad u wanaagsan aabo 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 waa ku bareelaadal aabo ismita macalinka jeebka ii balame guriga ha igu yimaado inaan wada shirnaan rabaa waaw sida lama filaanka miyaa kula kulmaysaana saaka adigoo wax jawaabana siin ayaa iska soo baxday alxaasil waxaa samaynaya ii balame la kulankiisa degdeg igu haya waayahay daawadayaal filimkan aad daawanaysaa waxaa lagu tarxamay studio asal 24 TV inantaydii hooyada ilaa shalay oo dhan way kuu ducaynaysay adiga ilaa shalay ilaa xalayna way soomaneed waxaasoo dhan maxay u samaynaysaa mataqaana adiga inay kuu ducayso marka taasaa ka warwada adiga waa ku baryayaa inantaydii waxyaabahan yaryar maxaad ugu oynaysaana gabadhaydii baaxis diyaariya qaajiye waa imaanayaa dhaqsahe oradee bax waxaa loo baahan yahay akoonka markay lacagta ku soo dhacaysa inaad la socotaan aabo ajiye waa kanaa mame iska fadhiya waa ku salaamay waa ka qaade magacayga waa shirkaan soo dhowow barasho wanaagsan mudane anigana ajiya barashada waan ku faraxsanahay sidoo kale mudane aan ku baro familkayga qoftaan horaaba isu taqiineen qoftaas kalena waa hooyada iska baro barasho wanaagsan waan ku salaamay ninkan kalena iska baro jagdiish waa gacanyareega ninkan kalena waa saaxiibkay soo dhowow haye adiga maxaad qabataa nolosha maxaad ka qabataa mudane jim ayaan macalinka ah waa arrin wanaagsan bisheena mushaharkaaga waa imisa 30,000 ayaan ku shaqeeyaa bishii mudane okay 30,000 ayaad tiraahdaa sooma nadaafada ka shaqeeya ma xuma hadda waan helnay haye maxaa loo qorsheeyey haa lix lagan u qorsheeyay lix lagan markii la xisaabiyo bishii 50,000 waaye ma xuma qiimahaas waan ogaanay waa ka gudbaynaa iga raalna xoogaa yar 30,000 aad tiraahdaa sooma waan ku fahmay mudane balse waxaa aad u wanaagsanaan lahayd muhiimaddan halkan isugu imaan inaan ka wada hadalna okay hadda muhiimadda ayaan ka hadlaynaa sooma lacagtaad qaadatid bishii waxaad iigu sheegtay 30,000 inay tahay aniga waxaan ahay nin businessman ah lacag iigu filanna waan haystaa laakiin keliya waxaan rabay inaan ogaado gabadhayda qofka nolosha la qaybsanaya habkuu lacagtu u soo saaro inaan ogaado keliya kuma fahmin mudane waa arrin iska basiida labadeena tartan yar inuuna dhex maraan rabaa haddii aad tartankaas ku guulaysato annagu waxaan diyaar kuu lahay wakhti walba gabadhayda si sharaf leh inaan kugu guuriyo laakiin haddii dhici weydo albaabku wuu furan yahay mudane challenge-gan soo hordhigaysa diyaar ayaan u ahay waan ku guulaysanayaa jacaylkayga inuu kuu muujinayaa waaw kalsoonidaada waan ka helay tartan sidaa u weyn maa 1 milyan oo rubis ayaan gacanta kaa saaraya bil gudaheedana waxaan rabaa 2 jibaar inaad ka dhigto laakiin ugu horeyn 2 shuruud ayaan wataa midda koowaad lacagtayda iyo magaca gabadhayda marnaba ma isticmaali kartid la soco midda labaadna waxay tahay lacag sharci daraa iima keeni kartid tartankan haddii aad raali ka tahay accept garee haddii kalena gabadhayda iska ilow waa cadi inankayga waan ku baryaa taasa sameyn jacaylkayga waa mid dhaba challenge-gaana waan ku guulaysanayaa bravo waxaasaa igu socayaan idiin dhahay keen warqadaha
mahadsanid is aragti dambe nabadiina halow sharkaanti sidee tahay saaxib war waa fiicanaye adiga dhankaaga ka sheekee bal aad iyo aad waan fiicana wax cusubi ma jiraan qola maafiya baan liis ka diyaariyo howlahaasaan ku jiray maalmahane maxaa cusubnayow imaad soo wici jirinbe sideed waqti igu heshay niyow arrin muhiimaa rabay inaan kaala hadlo ma arrin degdegaa jirta bal ii sheeg haa maxay ahayd waayihi ni aniga laftaydu waxaan doonayay inaan kuu imaado jimcaha wax firaaqaa miyaad leedahay bal ii sheeg jimcaha soo maha waan ku sugayaa waa wada hadlaynaa haye bay aje waxaan kaa rabaa aabbeynta u tagta adiga ma dhehaysa aniga tartankan diyaar u ayadoo wax tartan ama jaalanji aysan ku jirin ayaan ka codsan karnaa annaga aabba jaceylkeena maya rooshniyaqe jaalanjigan haddii aan ku guuldaraysanno ciil iyo caloliyo iyo ceebaan u dhimanaynaa laakiin haddii aan ku guulaysanno cid naga hor imaanaysa ma lahan war aje waa u fadhiisayna haddii dhaano hal bil xitaa maku daawaca karnaa ku dheh war haydheh maskaxda haddii aan ka shaqaysina wax walba waan xallin karnaa waa fahmi waana samayn karnaa laakiin waqtiyaa loo baahan yahay hal bil waad og tahay hal saac maleyno la tahay biriq ay kugu dhayaysaa mar waqtigeedoo naga dhacan waxaa sameyna wax ma taraya waxna ma soo kordhihaya intee ka bilaabaynaa seen u bilaabaynaa maskaxda dhan way wareerta ani waxaa sameeyaan la'ay roshini sidaan maxaad u tahayna maxaa kugu dhacay waan cabsanayaa hooyo cabsi ah laakiin sabab yaqay sabax marka hore soo fariiso hadda ii sheeg marka maxaa kugu dhacay aji haddii uu tartankan ku guuldaraysto aabbee ma ogolanay jaceylka labadeena naga dhexeeyo maxaan sameeyaa marka yaqay roshini idhegeyso wax sidaas u weyn ma dhacayaan ajiye tartankan haddii ku guulaysan waaya ama uu wax qaban waayeen walaalkii ayaan wacaya isagaana garab siinaya wax walbana isagaa dhammaynaya okay wax walba oo aad jeceshahay is dartii haddii aad ugu tanaasulayso ilaa goormee ayuu maskaxdaada ka shaqaynaya aamu yari xayb tarashne waqtigan maxaad ii soo wacday soo ma fiicnayd oo fiicanaya aniga keliya waxaan u baahnaa inaan kula hadlo walwal xaddaafa hadduu hayaa adna waa ku barya ku kalaha aje tartankan waan ku guulaysanana waad hubtaa soo maaha hawlwelin saddex cisho ayaaba sidaan ku baxdaa deer waxaanu harayna waa 27 cisho keliya hawlwelin yaaqay wax dhacaya ma lahan jacaylkaygana waan ku guulaysanayaa iska daa walwalka aje beri ma kulanaa labadana weliba galabtii maxaa diidaya okay meeshaan sugu imaan jirnay ayaan kugu sugayaa okay waaya bye ajey hee waan ku jeclahay keyga maa shaki kaa gala marka seexo waa habeene bye war jacayl qaleela gabadheeda nolosheeda laguma maaraynaayo war haddii aad shaqaysanaysid lacag fiican qaado qofka kartidiisa awooddiisa waxaa lagu ogaadaa bisha inta mushaahar uu qaato haddii uu sidhaba kuu jecel yahay noloshaada ha maareeyo nin soddonku qaata sidee noloshaada ugu wareejisay maya lacag fiican hadduu qaato waan ku guurinayaa
ها اسبitaalke way haddaan imaanayaa titore aniga waxaan ahay roshni ninka guursan lahaa hadda iga war xaaladada waxay sheegtay toore si wax u jiraan runtii dhaawacyo far badanaa ka soo gaaray madax hadda way fiicantaa soo maaha maya mudana aad ayaan ugu xumay maxaa yeelay dhaawaca soo gaaray ogiis ayay u geeriyootay iyada kuwa meedadka baaraha markay baaritaankooda dhammaystaan meedka dadkan waa inaad ku wareejisaan sabar haysaa ajay waa baryaa iska bax inaa halkan sii joogta lama baan roosni abeed haddii uu imaado dhibaato kale ayaa dhacaysa horta iska bax waa ku baryaaya halo adeer raani ayaa kula hadlayso waxa dhacay ma ogtaa anaga dadaal naguma yara laakiin wadna xanuun ku soo boodiyu ahaa hadda meydkiisa waa soo fiirin kartaa warbixinta kale iga hubay meydka madax ayaan soo fiirinayna
ku salaama taliya oo soo fadhiisa bal marka hore mahadsanid soo dhow raamana haa taliya shirkadaha waaweyn ee shirkadda la yidhaahdo ninkii iskala garidiisa waad maqashay soo maa haa waan maqlay weliba tiifiyadan ka daawada taliya waan gartay arrin baan doonaya haddaba inaan kuu sheego 3 ilaa 4 maalin ka hor waxaa jiray nin inantiisa jeclaa buuqa u weynina ninkaasu ka yimid waan gartay nasiib darro gabadhiisu shalay bay shil ku geeriyootay isla maalintaa shalay ahayd ayuu odaygiina dhintay ma la odhan karaa meeshaa waxbaa ku jira haa way ila tahay kuwan bay dadka baadhaa waxay noo sheegeen inuu inantiisa geerida ku timid ka dhaxay kadibna wadna xanuun ku soo booday ma sidaasa ninkani waa nin saamayn kula bulshada dhexdeeda waxaan doonayaa kiiskan inaad si fiican u soo baadho ood iga hubiso weliba adigu waaya taliya midda kalean kuu sheegayaa waxay tahay saxaafaddu intaanay wax warbixina ka helin kiiskan waxaan doonayaa inaad adigu warbixin cad gacanta ku soo dhigto waayahay taliya guul wacan baan ku leeyahay mahadsanid taliya ramanaa ukaadi haye kiiskan intaad baadhaysid waxaan doonayaa adigoo dharcada inaad baadhid may fahantay waayahay taliya falaba ayaa imi sidee wax dhacayaan adeer wax fiican male gabarteyda xabba ma toosan barojektiga dhan waa qasan yahay mudanaha magaciisaana kombaniga ku qoran maadaama uu ku qoran yahay wax barojekti oo dhammaystirmaayo ma lahan in kombaniyada la leeyahay magaba waxaan ku soo diyaarinaa warqadihii oo magac lagu bedeli laha iyo isaga looga bedelo adiga lagugu soo bedeli laha si raysa uga fikir kana fiirso waqti aad haysataa inay saxayn in kala eeg xaaladan ku sugannahay waxaan lama huraan miya lama huraan xay waawaan gabadhayda waa qasab maxaa yeelay shaqaalihii xaqoodii aan ugu maqan in mishaar la siiyo waay lacagna lama siin annaga dhibaatadeena lama baahna shaqaalaha inay saamayso sax waay haa waa saxantaa gurigan wuxuu ahaa gur barwaaqaysan rooshnii markii ay ninkaas jeclaatanaga dhibaato noogama horeynin maalintaas wixii ka dambeeyey burbur iyo dhibaato ayaan la kulannay gurigan nabadii oo dhan ayaa ka guurtay adeer intaan saxiixa ayaan ii sheegay gabartayda hal daqiiqa isug bal marwa isbitooraha ayaa ku imaaday ii soo dir haye marwa magacii waa ramalaa waxaana isbitoore fariiso mahadsanid marwa isbitaal waan ogahay kiiskan inuu yahay kiis weyn anigana waxaa laysoo xil saaray inaan baaritaan ku sameeyo waana dareemayaa xaaladdan inay kugu adag tahay adiga amaba ay ku dhaawici karto dhibaato ma laha waxaan arki lahaa aniga hore ayaan soo arkay wax kaloo dhaawici karaan ma jirin waxaana waxba maaha adiga kaliya hooshaada qabso haddii aad aniga information iga baahatana waad isoo wicin kartaa waadna ii imaan kartaa mahadsanid haddana waan sii baxay hooy yaa tahay halkaa maxaa ka qabanaysaa gudaha maxaa ka soo doontay
kujuf taliya sug salaame taliya salaama waxaan u baahanahay labada sano soo dhaafa taleefanada soo wacay mideeda kale isla caawa fiidkan kaaga bana waa fahamsan waxa leeyaan ku dhahay imise sano ayaa saaxiibo ahaydeen mudane 5 sano ayaan saaxiibo ahaynay marwo hay waxaa waaye maxaa dhacayna isbitaalka nagala soo wacay jaankamaana waa dhimatayaan dhahay waxaan u malaynayaa anigu nasiib inaan kugu helnay adiga ma guursatayna akhbaar farxad le miyaa jirto haa hooy adiga iska qiyaas bal waxaan u malaynayaa gabadh marwo waxaan rabaa inaan ku sheegay gaxnaaqaya runaantii mudanaha ee gabadhiisa markay naga dhinteen annaga qalbijab ayaa nagu dhacay haddana geerida duq markii aan maqla nolosheenna way burburtay familkaaga wuxuu ahaa famil aad u faraxsan eygaas ajeelan dhahay familkiina markuu tilaabo soo qaaday wax xun ayaa dhaxay reerkiina xasiloonidii farxadda way ka luntay runaantii eygaas ajeelan dhahayo haddaan arko aniga gaariga ayaa marsiinaya ma deynayo magacaa warya sundar sundar magacaaga shakhsiyadaada ismaba lahan nasiibkaasaan naqdi maxaa samaynahay mudan wax ma ogi raalli ah marwo warqadda rigooraada ayaa waxaa noo soo diray kambaniga singabuur ku yaallo singabuur ah haa marwo waxaynu noo soo direen markii aan fuli weyna dalabka ay naga baahnaayeen sidaas darteed ayaa noogu soo direen warqadda rigoorada maxaad ku hadlaysaana muddo 2 bilood ayaan haysanaa si aan dalabkooda ugu diyaarin marwo arrintan ku hadlaaya ani arrin saxa waaye annagana sidan ayaan ku fakaraynay balse markaan aragno warqadii orjinaalkahay ayay wax walba noo caddaadeen yaqay maxaad ku hadlaysaana waa kuwan hadda anaa ku wada fiiri balafaha ii yimaado waay maro waa ku salaama marwa waxaan dhacay waa maxay mudane balafaha dalabkaa waqtigiisa maxaa loo dhaafiyeyna soo lama baahna indhaha inaad ku heesa adiga maadaama uu dalab weyn yahay maya marwo anuka dalabkan waqtigiisa weli waa noo taagaya bilowinaaba noo sii dhimane marwo mar hore doo ninkaan dalabka noo soo gudbi lahaa waan ku dhaqaaqi lahayn balse haddeertan magacaan suuqa ku lahayn wuu baaba'ay waxaana khasaaraynaa 500 oo kun oo karoor marwo maya maahan qaladaa ka jiro waqtigaan dalabka dhiibanay waqtiga jawaabta waxbaa kala bedelay iga jooji mudana balfa annaga waan ku aaminay waxaana ku dhiibana kiiskan sidaan muhiimka u ah adigana waan ku tuuga hortay dhigayso waxaan kuu sheegaa horta marka hore maqal aniga wax qalada ma gelin aan ku barya ha isku day inaad ila marato amaad dhaawac intaan ka badan ii geysato haddaba beritoole midiyaha waa inaad ogeysiis noo geysaan waxaan u baahnaa ninkan booskiisa qofaan ku bedel inaad ii keentaan waaya marwo waayahay marwo midham marwo ninkan kiis qalalaasi ah ma ka diyaarinaa ii sheeg bal maya muddo 25 sano ayuu familkeena saaxiib la ahaa iqaabna intaana ugu filan rigooradaas kama hor leexin karna miya marwo arrintan waa heshiis waxaan ku khasbanaa lacagta rigoorada inaan iska bixinno okay wixii lama huraan waad samayn kartaan waayahay marwo
subax wanaagsan ramanaa fadhiiso mahadsanid taliye kiiska baaritaankiisa ku soo dhammaaday ha waa ii soo dhammaaday waa arrin wanaagsan sidoo kale waxaan soo ogaaday shirkaantii gabadhiisa roshni in ay jecleed nin ajeel yidhaahdo oo macallin meel jiima ka ah waana nin nadiifa taliye nadiifiga dhowaan gartay mideeda kale markii aan baaritaan sameeyey roshni arrin ka dhacda gurigeeda iyadoo la mashquulsan ayay waddada waxay kula gashay gaari weyn oo xamuula shil ninkii shilkaas geliyey oo gaarigooda xataa markii aan baarin waxaan soo ogaaday hore inuusan falal noocan oo kale uusan u geysanin taleefoonada soo wacay dhan kadib waa wada baari waa kuwana wax muhiima oo iiga soo baxa weyraatay ma jirto marka taas waxaan dhihi karaa khatar qoran ayay ahayd waana shil shirkaanta hooyadiisna markay geeridaas maqashay iyadana kooma ayay gashay hoo bal iga qabo ma sidaasaa ramanaa idhegayso kiiskani wax uu yahay kiis aad u weyn weeyaan dadkan saxaafadduna waxbay buunbuuniyaan su'aala aan loo baahnayn oo maalaayacniyana hadhow intaynu soo hor istaagaan bay annagana weydiinayaan waxay doonaanna way iska sawiranayaan waa inaad si taxadir loo xalisaa markaa waaya taliye anaa igu ogtahay shaqo wanaagsan baan mahadsanid taliye adigaa badan gurigan gurbar waaqaysan ayuu ahaa ma aqaana masiibadan meesha ay nooga imaatee waxaanoo dhan ninkaas dartiisa ayay ku dhaceen ninkaas daahili lahaa baabuurka ayaan dadarsiin laha ma dhaafi lahayn allo walaashe sidee tahayna aniga shir muhiim ayaan lahay waana kuu imaa waaya iga raali noqo marka okay asxaan inaa ii samays ayaan rabaa haa diyaar waan kuu samaynayaa bistooladeen u baahanahay maxay dhahday bistoolad ah maxaa ku hadlaysaa keliya waxaan ku dhaha sameey waa inaan isla berita helaa bistooladaas mii fahantayna okay waaya waan soo socdaa okay waaye waxariikaade assalaamu calaykum marwo wax walba soo ma dhammaystirna way dhammaystiran yihiin aan ku dhahay fooqeedooba qofka ku dhimanaa xabadda iska daayay haye xabaddan adiga miyaan kugu dhifanaya waa kula kaftamaya le maxaa dhacay marwo hadda ma ogaata kaftanka inaan dhibsanayo socawriya aye waan kaa tegey dhaqaaq biliis biskooladan aaday u fiican tahay ma ka heshayna tan waa hadiyadda ugu horeysay ee aan ku guddoonsiiyey baybi biskooladan aaday u fiican tahay ma ka heshayna tan waa hadiyadda ugu horeysay ee aan ku guddoonsiiyey saaxib baashan innaba caadi maahan cagahee dhulkaa qaadaysa aniga madaxaba dhulka ii gelinaysaa saaxib haye gacan gale iga raali noqo walaalow
haye hay sigaar ma kuu dhiibaana aad iyo aad barasho wanaagsan magacayga waa ganeesh mid la mida anigana raanay taatuugaadana waan ka helay istaal ka waran bal sooma shanna lambarkaad migu caawin kartaa ahaa dabcan 89 4 maxay dhahda ma ku maqlee sug 89 4 okay ma ku sii kaxayaane hore mu baxna waa caadi ayna mare halo rani ranima waa raja kuma taadiga isdeji deganaan muuji saaxiib ha qaylinin idhagayso aniga waxaan u baahanahay 5 lag oo keliya qorax dhacan aad ii keento haddii aad ii keeni weysana waxaad ogaanaysaa in ay siyaasadaadu dhammaanayso waryaa aniga horta aqoon mii leedahayna ma waxaad isku dayaysaa anigiina ila ciyaartidna ma waxay kula tahay anigoon aqoon ku lahayn inaan waxaan kugu sameeyey ee dhegaysanayo war ka badan jooji qorax dhaca lacagtii keen haddii aad isku daydo in aad wax kala samaysan ogo romansiga aad jilaysay meediya oo dhan waa laga daawanaa siyaasadaadana way u dhammaanaysaa hey waryaa anigu waxaan rabaa oo keliya inaan qofta waddada islamban waaba sababta aan lacagtaas yar kuugu soo dalacay haddii aad wax kala samayn lahayd ma waxay kula tahay 5 lig inaan kugu soo dalaci lahaa 20 lig ayaan kugu soo dalaci lahaa waxay ahaataba lacagta waa inaad ii keentaa haddii aad isku daydo hanjabaad iyo dabagal labadaba inaad samayso ogow nolosha baabiina waryaa halo fiiri kalaabka aan iskugu imaahaynayaa mardhowo waa soo socda hawada alibay isug waa laysoo gali oy mawaalinta adiga baawarka maasa iga jajabisana igaraali noqoyaaqay aniga steerinka ayaan kontrooli waaya markaa waan ka xumahay steerinka haddii bawadaysid tartiibka inaa ugadida kuu fiican haddii kale shilad gale aniga khasaaraan kuu geysta lacagteeda waan bixinaya may dhib malahan iska dhaaf yaaqay may mudana ha iga diidin haddii kale inta cimrigay ka dhiman qalad ayay igu ahaanaysaa laakiin iska dhaaf lambarkaaga miisay kartaa aha waa ku sheega 6 dawlad 8 dawlad anayn 6 9 ha saas waay waa isku dardarsamay naftay qaladayba lambarka ii qaadatay qandaraaska maxaas ahaane waa yaab intaana qofood horta waa kasoo dhex baxnay ganacsaday ahaayeen balse halka midoo nugu tagan waa ninkan dhakhtarka ah wuxuu noogu hanjabay inuu dacwad nooga gudbinay booliiska waxay ahaataba beybi waa inaan annaga lacag samaynaa balse sidan maaha waa inaan faraha isaga qadnaa hawshan ma fahanta maxaan samaynayaa marka aniga adaa shaqaynayno yaa shaqo ah haa aniga haa no way gacay maxaa dhacay أنا horta warbixintaada waa ku qanacay laakiin go'aan kaligii ma gaari karo MD-ga inaan u gudbo waa si go'aanka u dambeeya u gaaro waaya mudane beri ka waran seed u aragtaa berita ka waran mudane abaala waa si fiican waay sidaas darteed marka adiga waxaa fiican beri guriga MD-ga inaad imaatid si halkaas aad ku wada kulantiin kadibna shaqada lagugu ogolaado hadduu okay dho waaya mudane nasiib wac mahad mudane aad u mahadsantahay
badan yahay waan ku waan kaa qaaday soo dhawow mahadsanid ismiitaa soomaa magacaaga aha mudane warbixintaada ninkan ayaa mar hore isoo gudbiyey kambaniyada magaalada ku yaal mid ka mid ah maamulo caawiye ka ahaa okay daqiiqad yar iga raali noqoya oo ku soo laabanaya ها هلو ما مشغول سيدا وين مي وأود هادلي كرنا سميتا همبليو والله ودورت ما هتسند مدني هذا كلا بري حفيز كما مولها تجيسا isagaa wax walba kuu sharaxi doono shaqadaada mahadsanid mudane haddii adan dhib arkeenin waxaan doonayaa guriga inaan kala barto ma kala bara karaana ahay kaan anaa ku kala tusaay mahadsanid mudane gabdha ayay ahaydna tana roshniya layidhaah halka gabre maamulaha u dhala keliya waay boqolkiiba 30 ay shirkadda ku leedahay teeda kale gabadha nasiib darra ku dhacday idoo yar ee hooyadeed weysa mudanahana aad iyo aad ugu jecel yahay waa ku dhintaa marka laakiin iyada hooyo aabba saarigeeda u loofay ku tahay soo soco wax kale aan ku sii tusaa waayahay mudane ahoy gabadhan ismitaala mudanaha gacanyarihiisa waa hadda nagu soo biirta waan ku salaamay waan kaa qaaday inanteedu waa ducaysantahay looma baahna tan maya aad ayaad qurux badan tahay ma guursatayna ii sheeg ilaahay hadda maya ahoy bes maantay nagu soo biirta markaa xigtaad su'aalahan tirada badan la weydiiyey dib u dhigo iska nasaya ismita naqeen soo soco waayahay waan sii baxaya waayahay marwada hadalkeeda qalad uu fahmayaa su'aalahan sababtay ku weydiiyeysa waxa waaye mar walba waxay ka walwashaa siiri ma uusan guursan saas darteed rabtana mar labaad u guursado ahay waa iska caadi mudane xaaladeedana waan fahmi karaa micnaha adiga xitaa taageerada taayada dhib ma lahan hal beriyaad joogtaa familkaabaad qayb ka noqota ka hor dhib ma lahan hal beriyaad joogtaa familkaabaad qayb ka noqota ka hor inanteedii ma guursatay adiga ii sheeg iyada dhib ha u arkin mudajiriin mar labaad guursaday rabtaa haddii aan babadka kula weysanahay waa inaan yaxaas weyn helaa gurina haddii aan badegay waa inuu guri noocaana ahaada fikri wanaagsan ayuu ahaa aji qorshaha sidan aniga u diyaariyay haddii aan u raacnana sanad gudihiisa milyaneer ayaan noqonaynaa labadeennaba muxuu yahay qorshaha haddii aan barabno inaan milyaneer noqono shirikaandi waa inaan aniga sida dhaqsidala ku guursadaa maxaa ku hadlay labadiina waa isguursanaysiin anna sida daanyareed maa mandirada ka tugsanaa keliya waa maalmo kooban intaan xaaskiisa ahaanayo kadib markuu i guursadana waan u dhammaynayaa weliba ayadoona hal qof iga shekinin kadibna boqortooyadiisaan la wareegaynaa waxaasa fikir laga yidhaahdaa laakiin qorshaha sidan aniga ugu dhawaaqayo uma fududa ogo goobaan ku shaqaynaa loo baahan yahay oo sidee adiga ha ka walwalin aniga ayaa xalkeeda haya waaya haddii sidaas taa aan wada xafladayno aan wada xafladayno ಜಗವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ
ತುರ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡು xaaladaha suuqa ma qiimaysa ahaa mudane wax walba waa hubiya aniga waa fiicane okay warbixinta suuqa iyo waxaan war idinka sugaya waad diyaariseen soo ma aniga warbixinada suuqa iyo quotationka intaba waan kuu soo diyaariyey mudane daawooyinkaada bukiska gaduudan ee qolka kuu dhex yaala ayaan kugu riday fadlan isticmaalaya inantana aad ayay u fiican tahay aji caaw anaga mambaayana soconnaa shir muhiima ayaana leenahay tallaabadeeda ugu awoodda badana halkan ayay ka bilaabanaysaa waa arrin wanaagsan keep going macan badan mar walba sidan ayaan kula soo hadlaya okay qalad ayaa iga dhacay hadday macquul tahay iskii cafi simitaa qalbigayga waxbuu tabayaa wuxuuna rabaa lamaanihiis inaad noqoto maymay degdegii kuma jiro xoogaa yar fursadaad haystaa oo aad ku fikirto gacaliye habahanidii shabaqayga wuu ku soo dhacay adigana gabadh waa inaad soo dabtaa laakiin sidee halkan fiiri qoftan waa rashini waa gabadha keliya oo sirikaanti dhalay way shidan tahay 6 ilaa 7 jiim ayay dhigataa kadibna kollejka ayay aadaa okay 6 ilaa 7 jiim kadibna kollej sidaan kula kulmaya marka taasa su'aale jiimkaad kula kulmaysaa waana goobta ugu wanaagsan jiimka ah macalinka jiimka adigoo ahayd goobtaas tegaysaa goobtaas haddii aad macalinka noqotana waqti aad la qaadato waad helaysaa
waxaana loo baahan yahay kulanka ugu horeeya inaad ku soo jiidato oo daad saarto kulanka ugu horeeya haddii uu noqdo kulan fiican howsha way fududaanaysaa kulanka ugu horeeya sideen ugu soo jiidan karaa marka sidee war maxaad samaynaysaan iyow qoftan ilaa heer dhiig lagu shubo ma dhaawacmin orod bannaanka aad oo balaasa loo baahan yahay dhiiggiisaga miyaa ii shubin inaan la kulma ayaan rabaa hadda la kulan dhaqso inta ay nafi ugu jirto katiinadan waxaan u ilaalinayaa sidaan adiga ku ilaalin lahaa ma jaamacadaadan ka helin mise aje ayaad diidan tahay inaad ka fogaato aad ayaan ugu xumahay bistooladeen u baahanahay baby ninkaas odaygaa horta waaba guursataba arooskiinna waxaa mid shacsan laakiin hantidiisa inta aan annaga gacanta kaga dhigayno meeqay qaadan kartaa waa yaabanahe gacaliye hantida sharakaandi 500 kun oo ka mid annaga akoonkeena ayay ku jirtaa yaa 500 kun oo karoora sidee goorme kambaniga sharakaandi waxay qateen mashruuc qiimihiisa gaaraya 500 kun oo karoor Singapore ah waa maxay rigooradana sheegaysa maruu lacagta waa inaan si degdeg u bixinaa waxay doontaba ha aatee bixiyo laakiin sideen ku helaynaa kambaniga Singapore ku yaalo la sheegaya waa mid feega micnihii waxaan ka wadaa milkiilaha dhabta waa aniga walaalkay ma sidaasa mashruucan kambanigan ayaa qaatay waxayna ahayd muddo 6 bilooda in lagu diyaariyo balse aniga heshiiskiina waan bedelay dalabka taariikhdiisana waan bedelay dibaayadana cidna ay ogaanin ka waran balgacaliye maadaama waqtiga loo baahnaa uu dhaafay mashruuca heshiiskana uu ku xusnaa waqtiga loogu talagala haddii shaqada la qaban waayo lacagtan dib loo celinayo markaas kadibna waxaana soo gaartay warqad ka socota Singapore warqadaasna kii arkeen waxay ku qasbanaadeen lacagtii inay bixiyaan anigana akoonkeen ayaan ku soo wareejiyey lacagtii oo dhan arrimahaas oo dhan eedeynteeda maamulaha ayaan dusha ka saaray kadibna shaqada ayaanba ka buriyey innaba caadi mateed isoo fiiri hadda geemkayga wejigiisa labaad ayaan bilaabayaa ma intaana hamaru okay marwo 5 saac bar vindoor ayaan kula muhiim leenahay waa inaan u tagnaa laakiin aniga madax ayaa bi xanuunaaye waxay ahtaa shirka adiga iyo qaybgalku waa tan shakan ii soo gudbay waayahay marwo insha allah caawan is wada arkeen okay bye halo mohan kambaniga shirikaantii xaaladiisa iga waran mudan i dhegaysa kambaniyan wax saxan kamaba socdo siduu shirikaantu u dhintay wax walba isku qasan yihiin xitaa dalabka shaango ahaa wakhtigiisa laguma gudbinin kambani rigoor ah ayay 500 kun karoor ee ku gashay akhbaar fiican ayaad ii soo gudbisay oo ku maasanta adiga kambani haddaad u baahanta waa ka iibsan kartaa xitaa qiimo jaban way kaa siinayaan dadkan marka waa ka iibsan kartaa okay waad maasan tahay riyadeyda sidaan ayba iigu rumowday mar dhow kambanigan aniga ayaa la wareegay mudan aniga riyadaada waa ku rumeyey laakiin aniga dhanka kale ay fahmi kartaano waayahay mohan aniga ayaa ku xalinayo waxaad jeceshana kuu soo diraa maasanid mudane waaye baby qorshaheena xiga muxuu yahay uhuba diyaarsan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa hadda kambaniga shirikaantii oo dhan ku iibinaynaa kadibna ayadoona cid naga shakinaya Singapore aadaynaa wax walbana si deganaan ayaan ku dhammaynaynaa cid naga shakin ma dhahde yaan naga shakin kara horta hawlwalin wax walba waxay u dhicin qaabkan anaga qorsheena marka hore waxuu ahaana shirkaanta gursatid qorshaha waadna gursatay gabadhiis inaan dilnaa rabne shilaaba ku dhimata maskiinta
haatana deganaan ayaan ku baxaynaa booliska xitaa waxba nagama ogaanay singabuur ayaan aadaynaa nolol raaxo leh ayaana ku wada qaadanaynaa cid naga shakamaysa waranta haje sameyn hay saaxiibkay sundar waran meeshan maxaad ka soo doontay haje maxaa samaysay lawadiina dil qorshaysana samaysan arooshini way ku jeclad maxaa sidaan ugu gashin maxaad u qayaanta ii sheegbo meel dadka baxda ku laadlaya lacag darteedaan u qayaanay bil kadibna annaga singabuur ayaan u duuleynaa meesha ayaan nolol raaxo leh ku gelinaa adigana ogow haddii aadna soo raacdo oo khudbooyinkaanaad iska dhaafto waad nala raaxaysanaysaa waxaan haysanaa lacag aad u fara badan isii daawarya lacag xaaraan oo adaa soo shaqaysanin oo dhididkaada ina rabta inaad ku raaxaysatid haje i dhagays saaxabo waa ku barya beesada tuugta ee siyaa ku dhaayida u qalad maxaad ku hadlaysaa wasqiga isdeji markii ugu dambaysay ayaan kula hadlayaa saaxiibkeyo mana raacaysaa oo annaga nolosha mana la qaadanaysaa abeesade nolol idinku qaadaa ii sheegbo abeesa ada shaqaysatid miyaa ii sheegbo waryaa aniga yaanan shaqaysanin laakiin maskaxdeenna ayay ku timid u furya maskaxa sheegaysaa dadaa qayanta tuugatin lamadiina adna ma ku rabi abeesadana ma rabi iska baxbax farxadna ku noolow laakiin mida ku sheegay dhagaysaa ku qaladkana gasho waa kashalaa doontaa balan waay waryaa afkaaga iga xir igana hor leexo aje mid kale ku sii sheegay iga dhagayso abeesadaas badanaad ii sheegtay ama aday ahaba ma iidaa aada qof harrubka isticmaala ma jiraadin dhahay dadka lahayna dib ugu laabaysaa harrubi maka isticmaalaysin waa idin sheeg harrubi qofka isticmaalay ama leh waa ku salaamay magacayga waa rubin waan ku salaamay run ahaantii aabbahay kirikidka ayuu aad u jeclaay aniga laftigayga xataa waan jeclahay aabbahay aniga magacayuu iiga tegey waxaana lihi jiray robert sen aabbahay wuxuu igu magac daray nin asagoo u jeclaay oo kirikidka ciyaaro balse aniga aabbahay kuma uusan wanaagsanayn dhinaca kirikidka inuu ciyaaro middaasi aabbahay waa lagu fiicnaay halkan maxaad u timidnay waxaan u imaadan wax qabto micnahayga aan ku fahansiiyo waxaan maqla waxaa ku dhacay familka shirkaandii anigana waan ka xumahay arrintaas sidaas darteeda adigoo qof dumara inaad ganacsigan hoggaamido way kugu adkaanaysaa anigana waxaan rabaa maxaa rabtaa haddii aad ii oggolaanayso inaan aniga ganacsigan kaala wareego lacagna diyaar ayay iga tahay weliba lacag aad u fara badan laakiin kambanigan haa waan ogahay in khasaaro aad u fara badan oo galay balse xaaladda ayaa iska noocaasa waan dareemi karaa haddii aad ii oggolaato in aan la wareego aniga waxaan kuu oggolaa 500 oo kun oo koror 50 caddaan 50 madow waqtigaan u baahanahay waa hubaal waan ku siinayaa xitaa haddaad u baahato wax intaan ka badan diyaar ayay iga tahay waa ila soo xiriiri kartaa waa kana kaarkayga markii aad go'aan gaarto waad isoo wici kartaa waan kaa sii tegayaa ninkan waa robin gowdha waa ganacsado weyn wuxuu noo soo bandhigay 500 oo kun oo karoor boqolkiiba 50 lacagta wuxuu bixinayaa caddaan boqolkiiba 50 maya boqolkiiba 7 waxaan u baahanaa inuu madow u bixiyo boqolkiiba 30 kana caddaan boqolkiiba 70 haddii aan madow ka dhigno waxay noo keenaysaa 1 karoor inta kalena caddaan aan ka dhiganaynaa ma xuma laakiin lacag madow oo intaas la eg sideen Singapore u geysanaynaa taasaa la yaab leh ka walwalin kiran ayaa si fiican u yaqaano arrintan qaabka loo xalin lahaa laakiin anaga lacagtan hal mar ma wada qaadi karno xooga ayaa laga qaadayaa sabab laakiin aniga diyaarinayo waxaas adigina ka walwashimaba loo baahna mid moogtahay adiga aniga aad baan u faraxsanahay qorshooyinkan oo dhan wayna hirgaleen waan faraxsanahay run ahaantii wow
marwe ismita iyo ajey qorshe aad iyo aad u khatarsan ayaad degteen qorshahan mid la mida gaangistirada hindiya xataa hadday isku dayaan ma aha mid ay samayn karaan run ahaantii waan ka helay anigana markii aan bilaabaya baaritaankayga qorshihiinna wax yar oo shaki xataa igamuusa soo gelin aniga markii maskaxda booliisnimo aan la tashtay ayaan ogaaday sheekadan in ay wax ka qaldan yihiin kadibna idinkoon iyo ogeen ayaan indhaha idinku hayay aniga mar walba haddana gacan bira ayaad ku jirtaan igama baxsanaysaan indhahaasaad nagu haysay haddan soo xiraa ka waran kadibna master sirikaanta intuu tegtid waxaad dhahdaa qorshe fiicanay kuu degeen labadaas idinkoo dembiilayaale haddii aad sidaan u caqli badan tihiin anigoo booliisa maskaxdeeda maxaad ku qiyaasi kartaan waxaanaad arkaysaan oo kiyaale ma aha waa kaamiro si toosa waxaa u duubaysa aniga gacalisadeeda haddii aad dhibaatadii geysataan waxaad ogaataan gaashaanlaha hal koobi inay ka samayso inay si toosa ugu geynayso koobigii kalena media ayay geynaysaa idinkana baxar ayaad gelaysaan marka idinkoon buuqii waxba aan samaynin isku kay dhiiba haddii kale kiiskaan hadda ku jirtaan ayaan kiis kale idinkugu daraayo oo ah askari waajibaadkiis gudana inaad soo weerarteen artali u kaadiyaaqay maxaad ka faa'iidaysaa anaga inaad xirto maxaad si ku helaysaa xaraggeenna haddii aan idin xiro lafihiinaan jejebinaya dembiyadiinan bannaankaan soo dhigaya labadiina waa weliba intaan ka badan sharaxaad khasaarada labadiina idin soo gaaraysaa ee aniga maaha annaga haddii aad na xirto kuwa aad lu shaqaysa maxay ku siin karaan ii sheeg way ku dilacsiinayaan ama way kuu mahadcelinayaan waa intaasoo keliya balse haddaa annagana sii dayso haddaana sii dayso hee 50 karoor ayaan ku siinaynaa idinka waxaad qaadanaysaan 5,000 oo karoor anigana waxay siinaysaan 50,000 oo karoor soo yaanyo ah bariis baryaanigii chicken-ka idinkaa cunaya anigana waxay siinaysaan bariis qaleela taas wax soconaya ma waa inaad isoo raacdaan soo socdo isoo raacaya mama askari u kaadi waan ku baryaaya waan ku kordhinin haddii aad doonto boqolankaaga dhigayna waan ku baryaana daawo keliya 500,000 oo kun oo karoor lacag culus waaye mana qaadi kartaan marka taas way caddaynaysaa inaan aniga caawinaad iiga baahantiin si aad magaaladan uga baxdaan aniga caawinaad la'aanteedna ma bixi kartaan marka sidaa darteed laba meel waa inaad noogu kala qaybisaan lacagtaas qayb anaa qaadanaya qaybta kalena labadiina ayaa qaadanaya waaye 500 oo kun adise ku qaadaya lacagtaas lacag fara badan waa waryaa aniga sheekiisdafahay la imaaninaya caqliga waa necba waayaha taliya diyaar ayaanu ahay lacagta waan kuu kordhinaynaa waxaanu ku siinaynaa 5,000 oo karoor laakiin hal sharuud waa maxay shuruudda isbuuca soo socda annaga waxaan rabnaa inay aadna sangabuur waxaana noo samaynaysaa baasabooryo feeg ah markaan baxnana lacagtaada si toosa ayaan kugu soo gudbinaynaa diyaar muu tahay waaya asbuucan gudihiisa baasabooradiina aan idinkugu soo xalinayo laakiin maalin walba waa inaan is aragnaa haddii ay taas dhici weyso caqli aad la timaadaanna waxaad ogaataan labadiinaba in aan idin xiraayo isku badnaado indaasa kabiisa eego dhalama 500 kun oo karoor aje isdaji waan ku baryayaa waxaan waa wax iska yaro keliya 500 kun oo karoor ayaa hadda anaga noo harsan ninkaana mustaqbalkeena ayuu nagu caawin karaa walaashay akhbaar fiican ku haya oo kaaliska maxay tahayna akhbaarta cusub ii sheeg bal 500 kun oo karoon meeqaynoo dhali kartaa ma taqaanaa meeqaynoo dhale 520 kun waa arrin wanaagsane laakiin lacagtaas sidaas u badan intee laga helayaa fiir walaashay meeshan waxaa ka socda ganacsiga saliidda adiga isiidigay ajiy markaad meeshaan imaanaysaanna waxay ka dhigan tahay innagoo haysano 600 oo kun oo karoon waana ku raaxaysanaynaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waaya walaashay laakiin goorma imaanaysaan isbuuca soo socda ayaan imaanaynaa annaga barbalem yar ay haysta waan iska soo xalinayaa yaa maxay dhacday barbalem ah ka gudub walaal waa wax iska basiid anigaa xalinaya intaas inta ka horeysana ay soo waceen waayahay walaashay soo fariiso mahadsanid haye
maxaad u baahan tahayna haddii aad adiga su'aashaas i weydiiso aniga waxyaabo badan oon u baahanaha ayaa jiri karo ma aqaana waxaan ku siiyo waxaan ganacsiga ahna ku sii karana maba lahan inta kale nolosheeda ka harta nasiibka ayaa la tegay middaas ka gudub hadda ka waran heshiiskeenna sidee baad u aragtaa siduu kuliyaa ii sheeg horta heshiiska waan ogolahay aniga laakiin 2 shuruud ayaan wataa shuruudda koowaad waxaan u baahanahay 1,000 karoor oo kaasha 10 maalin gudaheed inaad igu xaliso heshiiskaas ka waran horta heshiiskaasi ma xuma balse waxay dhibaato ka taagan tahay sidaad ku xali lahayd lacagtaas madow sidee rabtaad ku xaliso taas aniga iyo madax xanuunkayga tahay waxaasoo dhanna aniga xalinay keliya waxaan u baahanahay warqadda lacagta inaadan ku soo wada caddaynin wax kalena anigaa dhammaystiraya middaas ma ogashahay marwa waa arrin fiican arrinta aad ka hadlayso balse waxaa loo baahan yahay qofka in fursad la siiyo marka waxaan u baahanahay muddo bil ah inaad fursad isiisid may aniga bil way igu fog tahay sida ugu dhaqsiyaha badan lacagtan waa inaad ku soo xalisaa haddii kale heshiiskan waad iska iloobaysaa wax weyn ma aha maya heshiiskaasi waan ogolahay lacagtana waan kuu soo xalinayaa si degdeg ayaan kugu keenayaa mideeda kale heshiiskan labadina si gooniin oo dhexmara mana doonaya laalaab xaggaagiina u ka imaado war aniga hadal haddaan dhaho waaba ka dhabeeyaaba sideedaani waayahay midda kale ka waran talaada haddii aan kulan samaysano waa arrin fiican mudanayaal iyo marwooyin aniga waan ogahay kambanigan dad badan ayaa noloshooda ka dabaranayay guryo badanna waa laga biilayay ninkayga rajadiisana waxay ahayd kambanigan muddo fara badan inuu sii shaqeeyo anigana wax walba familkayga ayaa ii ahaa waan ogahay go'aankan aan qaadanayo dad badan oo adinkaidin ka mid u dhaawacayo laakiin aniga waddo kale iima furno wax walbana waxaa ii ahaa dadkayga hadda iga fogaaday waan ogahay lacagtan kambanigan ku iibinaya inay aad u hooseyso waxaana ka bixinayaa 500 oo karoor qof walbo adinkaidin ka midan xaquu ku leeyahay wuu helayaa aniga ma jiri doono qofaan xaqiisa ii weynaayo naagtan aqligeeda 1,000 karoor ayay faa'iido u qaadanaysaa meeshaan ruwaayad ayay ku jiraysaa waa qofka cawar degdeg oo haddana soo gaare daawadayaal waxaad ogaatiin shirkaddii oo shirkaanta in la iibiy maanta qofta la yidhaahdo ismiitaana shaqaalaha qalbigooda ay ku guulaysatay run ahaantii 500,000 oo karoore ka bixisay xaqoodana wuxuu ballanqaad inay siiyeysa gordhow laakiin kambaniga qiimo hoose ayaa laga bixiyey sidaan u malaynaya kanan qaraabadiisaa tahay haa mudane haa fadhiiso adhibaatii ma jirtee lacagtu waa imis way badan tahay mudane 500,000 mayay ka badan tahay haa mudane 10,000 oo karoor waaye yaa 2,000 oo rubiya ayaa ku jirta waan samayn karaa laakiin iminka lacagtii meeday baa ii sheeg baabuurkay ku jirtaa halkeed u rabtayna singabura u rabaa 10% waa kaadi yar sooma war balkaale adiguna lacagta waad sheegaraysa soo maaha haa mudane keen waa kana qabo halkan xabbaad qaadanaysaa singabuur markaad tagta lambarka ku qoran ayaad wacaysaa iskaan baa la marinayaa kunkaa iminka aad sidatid baa wuxuu kuu dhalayaa 9,000 oo karoon oo weliba doolara oo fara badan oo dad kula qaada weliba aad u baahan tahay hadalkayga inaad fahantaan u malaynayaa siday kugu tahay bal ii sheeg waayaha mudane waan bixi karaa soo waad iska bixi kartaa mahadsanid ninka robin la dhahayo lacagta inteeda badan asagaa noo gudbinaya annagana halkan waxaan kala tegaynaa
1,000 karoor oo keliya markaan xagga tagnaan lambarka qoran ayaa iskaan marinaynaa lacagta iyadoo doolaraan helaynaa ka waran balaarintaas wow waa wanaagsan cajiib aniguna Singapore idin raaca shirkaygana meeshaas ayaan ku soo qaadanay haye laakiin baasaboorradina xalisa ka horeysa midaas ha 4 baasaboor 4 maalin gudaheed ayaan noogu soo diyaarinay bal ka waran iyo yaa qofka afraad ee sheeg bal xisaabta nooguma wajirin bay waa gaclisadeeda begam maxama aha wax walba hadda sida loogu talagalay ayay ku socdaan wayna dhammaanayaan laakiin Singapore intaan aadin ka hor hal shaqo waa inaan qabanaa maxay tahay waxaa jira hal qof oo daacada weliba anaga sirteena og si walba uu wanaagsan yahay anaga kuma kalsoonaan karno qofkaasna qof kale ma aha waa saaxiibkaaga hore Sundar miyaa dhahday nin burcada oo lagu magacaabo Sundar ayaa lagu dilay magaalada Delhi dhexdeeda daawadayaal filimka daawanaysa waxaa lagu tarjumay studio asalka haye ninkan hadda maxaan ku samaynaa kawanka sinina isagana waa inaad xafidaa ilaan waa muhiim 4 maalin ay soo socoto 4teenaba waa inaan hal meel ku kulannaa isla meeshaas ayaan Singapore ka aadaynaa oon ka wada baxaynaa waad fahanteen sooma okay weliba safar aad u qurux badan ayuu noqon doonaa halo kiran waa wax kula hadlay maxaa kugu dhacayna walaal waa maxay walwalkan kaa muuqdo wax kale ma ahan lacagteeda way baaba'da bas waay maxaad ka hadlaysaan yaa qaysi cad waxa igu sheeg walaal maxaa kugu dhacay abba kambaniyada aan maalgeliyay aniga lacagteeda kulli waa ay ku khasaareen bas waa aniga way ii dhammaatay marka lacagaha aan maalgeliyey faa'iido ayaa ka helaysaan isdhaaya laakiin hadda aniga waan khasaaray okay walaal isdaji adiga waan ku barya ilaa hadda lacag nagu filan waan haysanaa anigii ajay Singapore markaa imaano wax walbo anaga isla xalinayna hawlwalin adiga maya abba midas ma suurtagalaysa xataa waxaan sameeyay dad badan lacag inaan ka qaaday aan meel ku maalgeliyay dadkaasna hadda way i dilayaan bas waa aniga nolosheeda way ii dhammaatay waxaan sameeyayna ma aqaano inaan sii noolaana ilama aha walaal ku barya yaaqi sidaas oo fikirin labadeena ayaa imaanayna wax walba anaga kula xalinayna dhibaatana ma arkaysid isdaji waan ku barya walaal maya abba dadkan aad u jeedid waa halis cid ka faka kartana male yaaqi hal isbuuc u qabano waa inta aniga ka imaanayo oo kaliya maya walaal walaashi kiran yaaqi maqal walaal waa ku barya kiran dhegeyso kiran cafi walaal kiran wacdi lama qabanayo hadda fadlan yaaqi taleefankayga qabo walaal waan ku baryaa dhibaato badana walaal qabo washa ay dirtii waa dhameeyaan ku dhan qoftana kawaanka siiyey war qofta geerida ma ku hubsatay mise waa ku hubsadayaan ku dhahay ilaa ka dhimata ka dhig baxdana koranka fiiriyay waaya lacagtaada wada helaysaa gordho waa maasan tahay waayahay mudane wax walba oo dhacaya aniga qorsheyga ayay ku dhacayaan
warniyo qorshahayga markii kaaga loo barbardhigo kaagaan innaba caadi ahayn hay waxa ay tiri dhiil fiican ayaan u hayay muxuu ahaane kambaniga shirakaanta kambanigaas xaaladda uu ku jiro ayaan kuu sheegayaa qorshahan waa qorshihii ismita balse aniga ayaad i caawinaysaa gartay qorshaheedana qorshe burburinayaan samaynaynaa horta waa hubaal singabuur waa la aadaa laakiin anigii adigaan aadayno maskiin riyooyin badan ayay kaa leed ismitaa laakiin adiga isdaf ahaan ayaad ugu dhammaysa ka waran orniyahow riyo unbay ahaanaysaa markii hurdada laga toosana way baaba'aysaa war degdeg ah oo iminkeena soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa kambaniga shirkaant qoftii madaxda ka ahayd ee goorrow iibisay in ay iyada lafteeda dhimatay weliba bundada bangalore ay iska soo tuurtay isbatore ramana oo kiiskaas u xil saarnaa ayaa waxa uu sheegay in mental pressure iyada uu hayay xoogaa ay isku buuqday sidaas darteed ay isku soo tuurtay wey saaxiibkayga hay warkaysii bal sangabuur noloshada ma ka hor haysaa horta waa goob aad iyo aad u qurux badan niyaho saaxiib waa ka xumahay aniga ma duuli karo saaxiibaday la'aanteed horaad igu sheegtaniyo laakiin aaway eeda ima baraysid miya maxaa dhacay ilaa hadda ima barinay isdeji 2 daqiiq kadib way imaanaysaa iyadana iskaa barayso run ahaantii saaxiib shaqo weyn ayaan qabnay inaan celebrate samaysano soo maana oo weliba wiski aan ku raaxaysano caaw sidee kula tahay haye alaab original anaa noo hay baasaboorradina waa soo diyaariyey waa kuwaana john sebastian waa magac fiican niyaho waan ka helay run ahaantii magacaaga feega ah adigana muxuu yahay aniga rishi rushe ina rusheeyo magac wanaagsanaad la baxday iyada xataa magac hindi ayaan u bixiyey ismiitaane baasaboorkeeda waa kanami laakiin hadda uma malayna kan inuu shaqaynayo sababtoo ah baasaboor la'aananba aakhira u dira ka waran laakiin aaw saaxiibadda magac hindi ayaan u bixiyey begam bannaankuu soo bax اوكي اقرا النخ هلو ماي وما بهني وما سنتها وما بهني سوق ما دهاي iga daa markii boqoradaay adiguna wejigaaga tusin miyaad iska baxaysaa kaale roshni maadiga ma nooshaa weli sidaan kuugu xiise ma u malaynay sidaan ku dhaha hadda haddii aan ku arka nasiibaan leeyahay roshni qoftaan ma ogtahay waa roshniyadeeda meeqansiga adiga ma igu sheegtayne waan iloobe waad ku khasbantahay inaad joogtid maxaa yeele qofaad dhimasho ku tirinaysa ayaa hortaada yimid happy birthday to you ila happy birthday to you oo ilaahay hadda adiga waxba maadan fahmin maalinku aabi adiga kusoo bandhigaya jaalanjiga waxaan islaa isaga waa uu ka caarooday sida ayuuna ku baxay 12 saacada markay ku beegnada ayaan gurigaaga imaaday markaasna waxay ku adireen adiga dhalashadaada warheedha bese iga taa markan waa daala aniga ninkaagana waxa u ogolaanaya ma lahan jaalanji maalaa yacnihi ayuuba hadda ii soo bandhigay hawlwelin adiga qorshaheena wuu shaqaynayaa war waxa sidaas uma fududa rooshni waa inaan dilna anaga
dhegayso ismitaa hadda ayaan la hadlay meeshaas broblem inuu ka jiray ayaa ii muuqatay adiga berita waanays aragnaa wax walba markaasaan kuu sheegayaa maalinkaan arka anigan lama filanka haddii samaysay ayaanba go'aan waxaan ku gaaray maalinka adiga geeridaada ee tahay in aan kuu dabaaldega aniga hadiyadaada dhalashadan isla maalinkaas inaan ku siiyo qolka ismitaana waxaan ku xiran makarofon si aan warkiina u dhegaysto maalintaas ayay ahayd maalinka aniga ogaanay ninkan askarigaana inuu idinka tiimkiina ka tirsanyan waa idinla shaqeeyo markaas ayay ii caddaata aniga ku aamina nacasio dhabarkaad siiga toogtay runtii heshiis fiican ayay soo bandhigtay laakiin kaaga iyo keeda markaan isbarbar dhigay kaaga khashin ayuu noqday weliba isdafaac waadii qayaanta soo maaha bal fiir xaraamigan ayaaba khiyaano ka hadlaaya waraadhe waxaad isku malaysaa shaydaan wax wanaagsan sameeya adiga raamaa wuxuu ahaa adiga saaxiibkaa balse waad isticmaashay anigana caawinaadiisoo idil ayaan la wareegay kadibna waxaan kugu kalifay godkaaga gacantaada inaad ku qodatid adiga dartaa ayaan aabbahe iyo ayayaday ku waayey khasaare xun ayaad ii geysatay nacas ayaa tahay balse si ay qabriga ayaga xasiloonna uga helaan adigana waa inaad dhimataa ma noolaanaysa kamana dambaynaysid waa ku baryaa roosni dila iska kee dhaaf ajaysiyaanoo dhan maxaad aniga iigu baraysaa haydilin waa ku baryaa iska kee dhaaf roosni adiga halkan haddii aad joogto ismitaan yaa caawinaya ii sheeg way helay u baahan tahay wax la joogo hortaas darteed marka adiga waa inaad raacdaa waad ka daba tegaysaa roosni waad dhimanaysaa ay ayaa tahay waan ka helay waxaas waad mahadsantahay raamana runaantii adiga ayaa arrintan garab igu sii haddaad adiga ahaan lahayd meelaan wax ka qaban lahaa ma baaqaano nolosheeda dee ahaan lahayd ama mustaqbalkaygaba yes mala socotaa roshini markii ugu horreysay aan ku arkay si isdafaan inaad iiga dhex baxday oo kale adiga aniga aqoonii ma lihid indhaaga cabsi fara badan ayaan ka arkaa maxaan u cabsanayaana adiga xataa waxaan u malaynaya aqoon inaad ii lahayn aniga adiga waan ku aqaanaa weliba saaxiibka aji ayaan aqaanaa waxaan kaloo ogaa waxaad qorsheynaysaa in waxaad damacsan tihiinba hadda ii sheeg maxaan kuu qabtaa wax walban ku far haddaad qabata adiga waa hubaal waan isguursanaynaa labadeenna sideen kugu aaminaa aji oo khiyaanoole ee markii adiga aad aamintay ayaanba ogaada anigana inaad ii aamini kartid waaya maxaan kuu qabtaa waa inaan dhintaa aniga yaa dhimashadeeda beenta beri waa in ay dhacdaa aniga ayaa qorsheynaya shil ayaad gelaysaa asxaabteeda qof ka midaana ku qaada isbitaalka ku geenaya kadib anigaa ku imaanaya meeshana kaa soo kaxinaya oo waan ka hela qarshaha garan ahaantay mid anigii ag waa inaad diyaarisa adiga maxaa waaye haddana anigii ismaba lahayn qorshaaga ayuu kugu raacaya maxaa yeele aad baan u walwalaya run ahaantii maxaan kuugu raaci waaye heshiisaan caadi ahayn ayaad ii soo bandhigtee xobbi eegaan xunka uu dhintay waa maxay golofyada weli gacmahaaga ku jiran iska bixi khamrigaan aan ku wada raaxaysanay kaale golofiskan haddii aan gacmahayga ka bixiyo fariiga ayaa meesha laga helaya soo maaha fara'a maxaad ku hadlaysaana qamriga adiga haddaad cabayso sun ayaan kuugu soo daray xataa anaa
degay iyo kii dabanka la dhigayba labadoodaba haddii aad dantaada ka dhammaysato waa la isla dilaa oo lama kala reebo maxaa yeele qori qaaciisa waa la israaciyaa hadda qodaxay hortaagan mala wadadeedana waa nadiif aniga waan ku caawiyey adigana sidaan ayaad ii gashay sooma istiramashiina ayaa tahay waan ku caawiyaa maya maada caawin adiga adiga heshiis ayaan wada galnay aje ayaa heshiis kuu soo bandhigay garabkiisa ayaad istaagtay kiisa mid ka wanaagsana kuu soo bandhigay anigana anna waad ila jirtay waryaa waxaad tahay dhala saaxiibkaaga qaliga ah ayaad dhabarka ka toogatay ma waxay kula noqotay aniga inaan adigoo noocaasa ku gursanaya ii sheeg bal iskiifa ayaad tahay caloosha ayaad horis run ahaantii adigoo dhimanaya weliba si silaca u dhimanaya inaan ku arka ayaan rabaa aniga run ahaantii adiga dhimashadaada oo keliya ayaa dabka qalbigayga ka shidan demin kara runtii waad i khiyaantay maya naga dhaaf yaaqay ha sameyn adiga sidaa baasaboorkaaga ma arki karaa mahadsanid marwo safar wanaagsanaan ku leeyahay roosni gabartayda gudaha soo gal maxaa kugu dhacay ood xilligaan iigu timid ii sheeg gabartayda adeer maxaa xallow yihi adeer aniga waa lay khiyaane khiyaano waa la gacan gale oo qorshahan iyo kaab isku toosista miya gabartaydina keen aabbaha wax walbaanu sheegnay aniga aabbe haddaan warkan ula tago adeertaas igama ogolaanay waan hubaa xaadha aabbaha ma sheegayside waay hadda maxaa samayn kartaa mar adeer adiga garab isii waan hubaa adiga garab haddaad isiisid naagtaas xuntaa gurigeenna aniga ayaa ka saaraya adeer waa ballantaas anigaan kaa qaaday waxay rabaan annaga inayna baabi'iyaan marka sideen annaga qayb uga siinayna adeer saaxiibkayga qaaliga familkiisa inay burburiyaan ay rabaan laakiin iga habartay oo yukaan burburiha ka yeeli maayo taas qorshe caqli galaan kugu hayaa gabartayda laakiin xoogaa halis waay lagu dhiira ma karo halistee doonta ha noqoto adeer balse inaan mar ayaan diyaar u ahay hal waddaan qorshahooda ku jooji karna annaga inaad adiga dhimato waay micnaha dhimasho beenaad dhimihee adiga haddaan rabno inaan ajee burburino ramaanaha waxaa qasab inuu dhankeena soo maro balse qaabka waxaan ka fikiraa u dhankeena ku soo mari lahay aniga ayaa ka dhammeynaya taas gabadhaydi waxaan warbixiniga soo gaartay shirkaddii sangambuur ee annaga dalabkana sii haysa shirkaddaa shirkad feegay ahayd hawshaan oo dhan iyo shirkaddan kombanigan oo feegayaa ka mas-uul mataqaana samiitaa walaalkeed kiran shirkad feegoo abuuray kadibna dalab beenoo magaciisa rigooro la dhahow noo diyaariyey annagana 500 asaas nooga bax dib ayaan uga soo ceshanaa adeer macaan waa ka soo celi karnaa aniga laftirkayga hadda shirkad feegan xagga ka bilaabo magaca saaxiibkayaanu ku qoray singabuurayna ka jirta waxaan ka shaqeeyey shirkaddaas inay maalgeliso saliidda ceeriinka saas darteed lacagta dhabalay ka dhigayaan lacagtaan ka soo celiyaan ayakana qorshooda saas ugu dhammaha bilay faa'iido ku helaan waxnaan u arko xitaa asxaabtiis maalgashina sameeyaan ayaan ku qasbaynaa shirkan dartiisna adeer waxaan rabaa maskaxdiisa dhan inay isku dhex yaacdo ugu dambeenna
oo isaga gacantiisa isku dila ninkaas asaasoo kale inuu ku burburo ma weli xitaa waa isdilahaan ku dhahay oo sugaana samay doon أبو بريسك يا عبد وأنا ننقلب جاي قرآن أبو أنا جو عن رواباتك ننقبض بدي بلصاتك ينقو قواي قبدي وقتها كرتي هذا لصوبح له هدوء قبرك أيام بلنك قضاء بمعان dadka adiga sidaan kuu galeen nasiibkooda ayaan bedeli doonaa aabbo lagama yaabo inaan dhaafo ma cafinayo dadkaas nolosha ayaan ku celin ma dhaafayo dadkaas aabbo waa ballan halmida ku sheega meeshan waa uga bees badana taala laakiin adi ahaa ma iida ahaata waxaa idin sheega qof idinka mid ah har rag isticmaalay